Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhageyste, waxaan rabaa inaan wax yar kaaga sheego madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. Fadlan dhagahaaga ideymi daqiiqada yar kaliya haysii, bal ila ogow waxa ay dhalinyarada ku jeclaadeen madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan waa hogaamiye diyaariya mar walba da'yarta, waa hogaamiye soo xusha dhalinyarada, waa hogaamiye isku daya mar walba inuu diyaariyo hogaamiyaasha mustaqbalka. waa hogaamiye xukuumaddiisa koonfur galbeed ay aad ugu badan yihiin dhalinyarada marka aad eegto wasiirada, xildhibaanada, shaqaalaha dowladda. waa hogaamiye aan marnaba u jixin marnaba aan u dhagraaricin siyaasiyiinta danleyda ah. taas waxay dhashay in siyaasiyiinta danleyda ah ay aad uga soo horjeestaan mucaaradad xoog lehna ay ku bilaabaan. waxayna maaragtay mar walba isku dayaan siyaasiyiinta danleyda ah in shacabka ay u sheegaan fikrada qaldan. sidoo kale madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan waa hogaamiye hal adag oo aan marnaba jiljilaac maaragtay siyaasadeed loogu iman. waxa danta dadka iyo deegaanka koonfur galbeed ahna aan cidna uga heebeysan. waa hogaamiye howlkar ah oo waxa uu u dhaqaaqa ka dhabeeya, waxa uu markuu fikra u arka maslaxada koonfur galbeedna aan marnaba ka hakan. waa hogaamiye ballamaha uu ballan qaado ka dhabeeya. duruuf kasta soo wajahda wuxuu isku dayaa inuu ka tallaabsado. waa hogaamiye han weyn, ma aha hogaamiye maaragtay ku mashquula waxyaabaha yaryarka ah. waa hogaamiye hankiisu aad u weyn yahay, mar walba hamiya in meesha uu joogo uu ka dhaqaaqo oo meel kasii sarreysa uu tago. waa hogaamiye jecel dadkiisa iyo deegaankiisa inuu sare u qaado. waa hogaamiye mar walba ku